hadadiido habeen wacan nasiibkayga halkayga aan ku sugayaa markaas wuxuu siiyay ilaahay ma inta wax weydiistay jilbaha qabsatay الله يو نفساري يا محا قرتي سوري الله يو نفساري يا محا قرتي سوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa Sancad official caawa waxa labadayda garab ka muuqda ما صنعت بامسو صنعو waa Sancad sankaagu kaliya cad sanka kaliya waa sidaad sheegtay ee isku yeeyay jarkaagu hadda way soo kaadin barigan yaraa weeye maxaa waan waxa isla rinjoon sabale way dhulkan ku dhici jiray dabadeedna intaas ay cadaan kartay dheer oo kaaga horeeyay aad iyo aad waxa labadayda garab ka muuqda laba qof oo qaaliya sharaf iyo karaamo waa Muhaan iyo Muna Faysal waa aniguna baan ahaa caawa su'aalo yar oo kooban iyo waliba hadii ilaahay ku roon yahay isfurasho dadkan waa xagan waxaanu qayb badinaynaa inuu yahay ninka looga daba haray sheekooyinka maadayska qosolka inantanina waa inanta codka ama dhuunta ilaahay u dhiibay geeyga Soomaalidu ay degto barnaamijkan caawa waxa uu dhextaal u yahay riwaayadeeni Masayr iyo Malabeena waa nasasho kooban waliba asxaab kale badanina way jirtaa laba baarti marka daawataan dhextaal baan idin soo dhigi doonaa insha Allah waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Soomaalidu waxay hormarisaa rag iyo dumarka ragga ninkan hormarinayna soo dhawo Muhaan ma isfuraan leedahay ku weydiin doonaa bal soo dhawo asxaabta soo dhaweeyo waa ku ka aad iyo aad asxaabta Muhaan official magaciisa muuqiisa oo garanaysa waxa la yiraahdo soo dhawaada channelkan ku soo dhawaada waa ragga ugu muhiimsan oo guriga ku jooga ninkan arkaysaan qayb ka mid ah farxadan ka helaa xala ma soo xasuustaa xala waa carabaysan ma sha Allah isaga waa casuunayn saaxiib waxaan ku leeyahay horumar wacan baa ku rajeenayaa channelka hadda ku cusubtiin subscribe saara hadda hore u joogteen noo sii share gareeya barnaamijka la sii socda waa dhaw maxaa tirahdeen like to waa naf share tuna waa waa qurux like waa lanaan commentigu waa karaamo share waa sharaf inaguna maxaynu nahay intii dadka loo sameeyay soo dhawo waan dhaw walaadiga asxaabtaada waxaan aad u maasantiin waxaan weydiinayaa labadoodaba hal su'aal ah mid walba wax ka bixinaya jawaabteeda oo qurux badan ma filaya haddaan ku hormaro Muna Faysal geeygan aynu ku noolnahay qof walba waxa hadii Ilaahay ku roon yahay oo aad u neceb yahay maxaad adigu shakhsi ahaan necebta waxaan necabahay rufiyaanimada necebta adduunka rufiyaanimo ugu nacba okay qof rufiyaan hadii lagu dhiibi lahaa xukun noocay xukumi lahayd dawa Muhaan kulli ya Muhaan keeneen Muhaan bay maxaad ku xukumi lahayd dhagaxmo ku dilaa godno ku ridilaa isagoo nool gabadhaas waxay sheegtay bahasha inay necab tahay hal laga ilaaliyo Muhaanna way kula kaftamaysaa sababtoo ah wadada isu dhow Muhaan adduunka maxaad ugu necabtaa niwa adduunka beenta adduunka u necab adduunka ana waa sheega aniguna hadii aan ku darsaday adduunka waxaan u necbahay ceebta waxyaabaha aad kale isaga ilaaliyo beenta waa wax laga soo noolaan karo rufiyaanimada qofkaas wada jari kartaa laakiin ceebtu waa bar adiga ka mid oo go'day hadii aan u dhiibo sheeko yar aan noga siimoha waliba sheekooyinkaaga taad is leedahay ugu qosol badanta sheeko niyo waxaan ka sheekaynayaa nin waalan diiba xasuusta wallaah bad xamar nin waalan waa gartay baa wuxuu maqaray caruur is dhahaysa hooyo jilbahan ku haystaa waxisi ilaahooda markaas wuxuu siiyay ilaahay ma inta wax weydiistay jilbaha qabsatay awaliya haye siir ilaahay hal u leeyahay intuu luuyaha ku dhigay يا ربي الرحمن وهشعان سهل شهر هرانتك دفتي موت هاي شنو نفاش نقول لي وانا لا يجلبيسين وهايستوقه هل بيكون جاي خلاص هالشيء بغلك دفتي شي باشا يقول لي هاي يقول لي باش منو waxaan ku xukumaynaa iyada waliba weydiin ma aha waa xukun muna waxaan ka rabnaa maadaama tahay jiilkii adigu hadda xilligii dambe codkaaguna yahay dhuuntaadu tahay sharaf ba halkan ka dhacday war ma leh hal lagu qaato dhuuntaaduna ay tahay dhuuntii aan sheegay hadii Ilaahay ku roon yahay dhuuntii dunidii qof aataa
hadii la yiraahdo dhanka codka iga badan ilaa aan ku dhaarteen cashayn maayo suxuuran maayo afurku ay weekaa heesii hore hees macaan kuwa dambe maaha wala heesaa hore isku fiicneen wasalow kalgacalku anna mayl saratagay waan sahashanay ma dhigaysin taarada ma sabaan badan sadaal ku noolaa ma ila salaadan soo jeegid ku kara allahayow nafsaariya maxaa qortay suray allahayow nafsaariya maxaa qortay suray sintayo haddaan dhabar seeduhu isugu oo socodla ma awoodi jacaylkaana wada simin ragga kan ka saayada sahwi iyo dhibaatada maxay saaray kaligay meel sabaad dhexdoodee allahayow nafsaariya maxaa qortay suray allahayow nafsaariya maxaa qortay suray الله يا عيسى أفكار محان هذا محسوس بكل هاي كاديني ويريدي ورالك راح أقول وأنا صفت النقطي صفت جوديب أبي ما هتسنتها ولا شغالي من فيصل يا مهان وليبا مهان وفشيان محل أصحابتها هذا وحنا يهي أديك أصحابتها والله هاي كرامة يسد الله يتوكله sida loo igto oo kala Allah na karaamay taacadkeedii waad haysaan haddaan hal xabo macaan ka dabageeyo aan yada isku la dheerinayo yadan isku la dheerinaya matayda ay misan dhowr jeer markay soo yeesay ma ka dabageeyo sida ragga sida hogosha roobkay ama hilacguyo daay hobaan bislaatiyo hadhawada biyaysan oo lagu hayaamo hubal sahankii loo raray wuxuu sii tiqiyaaba markaa habacsi loo jiro habboonay naftaydan higsimaad ku noqoto adaayiraaye haddaad diido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygaan ku sugayaa hanaankayo quruxdan munay kugu jeclaado hablahaadu sidataa aybadiyo asluubtee mahamiye dhartaayo habeen socodku waasho waxaan heeda daababa hawada sarey jeer waxaan hiilay noqon lahaa halistiyo dhibtaan qabo adoo iga hor joogsada haddaad diido habeen wacan nasiibkayga halkaygaan ku sugayaa annagoo isku duuban baan waxaanu idin leenahay weyna kaa haddaba weyna kaa